هير ما قبته ريرنا لا ما قبته السلطان ما قبته أرنتاس ما جلو دولة إيه الشعب إيه اسم إيه نبضون إيه كل وأنا جايسيننا أرنتاس نمانكو كتلا بسدين أنا قاعد ياشيدي يمشي يبودلهجدي إننا وحبك أوي وأنا هلاك عضينا وأنكر عصنا يرجع هري وهاللي يعني أرنتا كر عصنا يجي بعاو هلك فردية أرنتا وحويه كعم نجشي أفضوبا نقولشره أنت أصلا إسلام كنت صينا عنه حالي نون بيشريرنا اللي يابا وحي كهذلين إنه دهين سلطان بشير سلطان عرب دور نكلا يا بشير سلطان عرب دور وسلطان كبيش ريرنا اللي نكاس اللي هو بشير سلطان عرب دور أنا غير عرب دور أرنت يدو وان لو سعتي وحين مرس وضع هذا نمان طلق عوا وحنا مقلنا بحبي شاعية نمان كاسو جودي بيشجعني جودنا معه أرنتها فرجلين بيجريه أنه هذا روحنا لنا أرنت يدا فراها كلبحة أنا غير عبد الله هي وادنا هاي ولا الله يهال كان يتشوغان حسن عرب دور وإلى تشوغا حسين عرب دور وإلى تشوغا محمد عرب دور وإلى تشوغا عنو وتشوغا أرنتها حلل الشاعية ورجع قيبتود شاعية عد يري عد قام بوحنا كلنا هاي وحال لقى شقي وحكمة جيران waxaanu leenahay miiska wada hadalka imaada saldanadaha ku ciyaarina fool xumada ka daaya magac xumada joojiya walaalayaal ha khaldinina wax ninka la yiraahdo Bashiirow ka daa hadeer aad ka tagaysaa Garowe baasaboor xuna wadataa ha kharibin waa wada hadlaynaa hadal baa inoo socday hadalkii inoo socday baa inoo furan nimanka xalay ku yiri annaga suldaan ka dhigana beenbe ku sheegay annaga ilma carab duur hadaysan wax ka dhigin nin kale waxba kaama dhigi karo reerna la waxa la tol baan nootiin nimanka wax khaldaya oo odayaasha oo dhowrka nina oo farsamada ku raacayna aan dareemi karno waxaan jecelnahay tolow inaad ka hortagtaan hawshaas waa wax kama jiraan dal iyo dibadba waxaan leenahay arintii xalay laga shaqeeyay waa waxaanan ogeyn waa waxaanan shuqul ku lahayn hadalkeedina waa noo furiyaa saldanadayna waa dhisanayna annagana ka tashanayna walina waa noo socotaa marka waxaan rabnaa inaan dadka ogeysiino gobolka Nugaal iyo gobolada kaleba ilaa heer madaxweyne arinta la wado inay wax kama jiraan tahay Bashiir Suldaan Carab Duur wuxuu ka mid yahay walaalihii ilma Suldaan Carab Duur buu ka mid yahay wali suldaan laguma magacaabin wali suldaan lagama dhigin waa been waa wax kama jiraan hal nino in carab duura oo suldaana ma jiro wali hawshayada waa noo socotaa annaga ka wada hadlayna waxaan tolkay leeyahay nimanka kooxda ama nimanka farakutiriska ahi inay naga joojiyaan gacmaha ay nagu wadaan oo nagu dhex wadaan annagu arintayda annaga ka tashanna intay doonta ha qaadato haddii nin dal jooga iyo nin baasaboor wataan ma heshiin karaanba wixii waa qarbo walaal Bashiir istaji waa wada hadlaynaa arinteena ka wada hadlaynaa xaqiiqdeenu isla gaaraynaa waa dhameysanaynaa waxba nimanka odayaasha ayaysa ku reen inaan ku furdano yuusa ku reen arinteena waa dhameysanaynaa xaqiiqdeenu wada tagaynaa ninka alla u calfaana qaadanaya marka waxaan ogeysinaa gobolka Nugaal nabadoonnada waxgaradka aqoon-yahanada hawsha xalay la shaaciyay inaana waxba ka ogeyn hadeerna caawa waa ka falcelinaynaa shirka odayaasha reer Naanley isugu yimaadeen waa arinta noocaas inay ka falceliyaan walaalayaal waxaan ahay ninkii labaad oo odagu oo dhalay oo waxaan ururka xigeenka waxaan ahay ninkii ciidamadu saarnayd arinta dhacday anagu waxaan ogeyn anagu hawsheeda noo socoto waqti kasta ha qaato meel kasta ha soo marto arintan anaga noo taal oo san nin kale faragashan karin ama ka hadli karin bay ahayd waxaan maqalay ninkii la oran jiray Bashiir waa la doortay suldaan ahaan baa loo doortay waxaas wax suurtagal ma aha halkaan aanu joognaa anagoo ilma carab duura isagii baa iyo waxaan naga maqnaado nin kale waxaanu leenahay war noo soo noqda hawshiyadii si tartiib aan u dhameysanaynaa nin kale oo arintaan u furan tahay oo gacmaha inuu la galo ay u banaan tahay ma jiro waxaanu leenahay ninkii ogaan lahaa arintaas ama wax laga weydiin lahaa aniga weeye waxna kama warqabo waa arin maartay aan banaanayn oo maartay qaldan oo si xun wax loo faafiyay anagu waxa la doonayaa isku dhacayaga waxa la doonayaa inaanu kala tagno waxa la doonayaa inay saldanadana maartay liciifto waxa soo dhan meesha ma yaaliin anagu waxaanu nahay dadkii saldanada lahaa ninka ma leh
tolku wuxuu nagu leeyahay markaanu wax qaban kari weyno ama iska hor nimaadno ama waqti ay qaato annagoo wada socono inaan u tagno wartalow bal arrintii anagu dhaqaajin weynaye bal nala eega tolku markaasoo arrintaas ama qaadan karaa ama annaga dib nooga soo celin karaa laakiin arrintaas annagoo arrintii wadanna oo hawsheedii ku jirna oo turxaan bixintii wadna waxay inay arrinta intay gacanta u soo ritaan ay iyagu say doonaan ka yeelaan ama intay nin meel ku soo xirtaan yiraahdaa ninkaasaan doonno hebel baa la yiraahdaa wax suurtagal ma jirto wax suurtagelayana maaha mana ogolin waxaanu leenahay faraha nagala baxa waxaan ma ogolin maaragtay gacan annaga naga baxsan inayna soo maaragtay arrinteeda maamusho mana qaadanayno hawshan caawa meesha loo yimi horta curadkeedii aniga ah tii xalayna aan wax ka ogeyn lama qaban karo curadkeeda anaa in caruduura ma garatay waxaa weeye niman gooni goobsada oo qasayaala oo weligoodba tolka reer qaloocan kaga jira ayaa waxaa sameeyey annagu waanaan la ogeyn waanaan ka warqabin waana loo sheegin waxaanu ogeysiinaynaa marka beesha Meheri xukuumadda Puntland isimada nabadoonnada odayaasha xafiisyada oo dhan Puntland inaan wax aanu ka ognahay iyo jirin oo wax ay tahay aan aqoon oo ay inkuna aydan maartay wax khalad inay tahay aad u qaadataan annaga shir baa noo socday xalay baan waxaanu maqlay dad baa la doortay soo garan xalay baan maqlay dad baa la doortay oo yaa ka warramay yaa noo sheegay yaa ogaa hawlaan anagu ogeyn oo anigu curadkaan ogeyn curadku-xigeenka ogeyn in carabduurka la dooranaya muxuu yahay waa waxaan jirin marka nin dhegta u raadicin karaan ma jiro Soomaaliya garan illa ma anagu aanu ka maartay ka dhumaysano oo hawsheeda ka baaraan degno waxaan halkan ka radinaynaa arrin ay ku dhaqaaqeen dad afduub ku sameeyey saldanada nin ka mid ah reer Suudaan Bashiir baa wuxuu iclaamsaday inuu aanashub uu samaystay cid la ogeyd iyo cid arrintaa wax ka ogeyd midna ma jirin arrinkayagi waa noo socday welina tashigiisa iyo taladiisa waa ku jirnaa waxaanu doonaynaa waxa ummadda faraha kula jirta oo aanu filayno kuwa dan siyaasadeed ka leh iyo kuwa iyagu dan gaara ka leh intaba inay faraha kala baxaan arrinkayagana nagu soo celiyaan annaga waxaanu leenahay aanu u sheegayaa tolweynaha reer Naalaye ama Meheri arrinkaas waa arrin khaldan annagu berri baan ka nahay intiyadii kale oo reer Suudaan ilmo Cabdullaahi reer Suudaan Nuur Suudaan Cabdullaahi Xasan Suudaan Cabdullaahi Maxamed Suudaan Cabdullaahi iyo anigoo Xuseen Suudaan Cabdullaahi waxaanu cod dheer iyo cod gaaban ku leenahay arrinkaas waa khalad waa baadil mana taageersanin dowladda Puntland waxaanu sheegaynaa iyo ismada nabadoonnada waxgaradka arrinkaas inuu arrin khaldan yahay aan marnaba lagu taageerin waxaas baadilka ah halkan waa maqlaysaan ilmo Suudaan Cabdullaahi Xaaji Nuur waa afar nin baa goobta fadhiya annaguna ehel baa u nahay tol baa u nahay ilma adeer baa u nahay waxa xalay dhacayna iyaguna waxay dhan war kama hayn annaguna war kama hayn haddee waxa islaamka waddanka jooga waxaanu ogeysiinaynaa inaan arrintaan naxba ka ogeyn maamul isimo nabadoonno mid federaal iyo mid dowlad goboleed intaba inaan nax ka ogeyn arrin guri ku jirtay
oo reer ku jirtay oo talada loo fadhiyay in qolo afduubato hadda waxa weyn dhaqanka weyn naqaana ilaahay inta dhaqan baa la soo dhaqmay dhaqanka doorasho leedahay toban intay waxaan ogeysiinaynaa inay yahadaan taa beeshaan annagoo beela magaalada joognaa annaga guddi waxa ogeysiinaynaa reer Naalaye inaysan wax aan dhicin ay tahay baa la dareemi karaa waxaanu taageeraynaa annagu meesha u nimi Suldaan Cabdullaahi Xaaji Nuur oo arinta yiri waxba kama aanna ogeyn waa nimna Suldaan tala guriba ahayd iyaga u banaanayd hadda iskhilaaf ka timaadeen ay tulku soo ceshaan bahay iyagiiba caawa halka fadhiya arinta waxa weeye gacan baa na gashay afduub baa nagu jira intaasaan islaamka tusayna annagu waayo iyagiina waa ka sadar muuqda waa su'aal doono waa kuwa halka fadhiya nimanka u waaweynaa intaasaanu meesha u nimi ummadda waxaan leenahay inta hadda ka shaqeynaysan waxay ahayd niman reer Naalaye ummaduna khilaafku waa ku jira inay niman walaalo ah khilaaf dhex galiyaan ma haboona isu celin bay leeyihiin isku dhibrin bay leeyihiin isu dabqaad bay leeyihiin inay dab dhex dhigaan ma fiicna wabillahi tawfiiq wa inta san leeyahay waxaanu beeninaynaa kuwii xalay ku dhawaaqay warka soo saaray beenta ah aanan la ogeyn aanan la fariisan noo sheegin tala naga siin waa kuwa ilma Cabdullaahi Xaaji Nuur nooma aysa sheegin nooma yeerin kulama socono kulama jirno waxaanu ummadda caalamka degan Puntland u sheegaynaa inay saldanadaasi tahay mid been ah oo Bashiir dhoobanayo raalina kuma nihin shaqana kuma lihin ilma Suldaan Carab Duurna ma oga tolkuna ma oga waa mid afduub ah sidaad ogtihiinba waxaanu anagu caawa halkan u taaganahay qabiiladu u taagan tahay inay wax ma kaba jiraan ku tilmaanto wixii xalay ka dhacay hotel HJ ay ku qabteen niman reerka kamid ah oo kooban waxaanu leenahay sadano waa la yaqaanaa qaabka loo u dhisanta waa la yaqaanaa sadano xaajiga hay suldaanka ay u dhintay ahayd dad buu ka tagay dadku ka tagay waa kuwa halka fadhiya nin kamid ah ba 12 nin soo kaxaysay iyagoon cidna wax ka weydiin cidna wax kala hadlin bay dhaheen ninkaas suldaan caawanu caleema saaran annagoo guddi bay sheegteen guddiga reerka guddooma aha nabadoonnoma aha kuma ay metelin ma aanan dirsan sadana waa la yaqaanayo de beelba iska leh 2 iyo 12 iyo 3 qof waxay tala ka gaaraan ma aha hadda way iska badatay wadanka hawshiisu way badatay in hadba laba meel inta istaagto dhahdo waxbaan ku caan shubaynaayo baalkeenayna war waxaan leenahay raggii sida yeelay khalad baad gasheen ka soo noqda dadkii talada lahaa u daaya odayaashii lahaa waa kuwa kan curadadii curud ku xigeenkii kulligood 4 nin oo ilma suldaana fadhiya waxaan qabnaa inay tahay wax meel kale laga soo abaabulay ay siyaasad ku lug leedahay wax la leeyahay lagu dhawaaqo halala ordo dadku iyaga isxaliya waxaan leenahay raggii shalay xaydaamka dhaafay war xaydaanka tolku soo noqda oo talada u daayay dadka oo ha iska horkeenin ummadatan walaalaha ah sadana waa la yaqaanaa si ku dhisanto wixii meesha ka yeeray xalay ummadooda ka fajacday ma ahayn sadano ragga 2-3 oday oo la khalday iyo inta kale oo danley ahaydoo dan meesha u timidana ay leeyihiin raba inay wax u dhistaan ma aha wax qabiilka iyo dadka metela waxaanu leenahay beeshan waa beel balaaran waa beel taladeeda leh isinimadu waa isin meheriyoo dhan ka dhaxaysa ma aha wax 12 qof meel la istaagaanin waxaanu leenahay oo ogeysiinaynaa dawladda Puntland waxaanu leenahay dawladda Puntland maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha isimada gobolka kuwa Puntland nabadoonnada dadka deegaanka ah inaan waxaas ay tahay wax kama jiraan ah ay tahay wax beel in lagu burburiyo la doonayo waxaan ku hadlayaa magaca afka dhalinyarada beesha aqoon-yahanka waxaan kaloo ku hadlayaa afka nabadoonka reer Naalaye salaanka dib kulanka iyaga wuxuu daaran yahay inaan cadeyno inaysan waxba ka jirin arintii nimankii odayaasha ahaa oo xalay ku dhawaaqay oo aan cidna la ogeyn Bashiir Suldaan Cabdullaahi
bashiir suldaan cabdulaahi waxaanu halkan ka cadaynaynaa ilmo cabdulaahi xaaji nuur in hawshu ay iyaga u socotay niman intay hadalka ka qaateen intay nimani ay ninkaas soo baalkeeyeen ay iyagu iskood uu maaragtay u caleemo saareen aysan cidna la ogeyn waxaanu cadaynaynaa arrinkaas waxaanu leenahay waxba kama jiraan waa kaas waxaanu ogeysiinaynaa ummadda gobolka ku nool dowladda Puntland iyo wixii federaalka ah dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi hadda meesha waxay ku fadhiyaan waa afar wadariga waaxid keeba waa wal dareemi kara waxaan halkan ka cadaynayaa shirka halka ka dhacay oo lagu caleemo saaray shir dhuumasho inuu ahaa oo tolka lagu afduubay oo lagu gafay tolkana waxaan ka leeyahay ka raali noqda gafka iyo waxyaalaha nigu sameeyay ninka la yiraahdo Bashiir wuxuu nooga yimid Yurub baasboor Yurub haysta kuwa kale Yurub ka yimaadeen Cabdulaahi Xaaji Nuurna way fadhiyaan meesha saaka masiirtooda u yimaadeen iyo masiirta suldaanka in isku ogaadaan qofka bid'aadanka ah qofkii ku haboon ilmo Cabdulaahi Xaaji Nuur ayagoo arintoodii ku jira ba arinkaas dhacay dowladda Puntland ugu horeeyo madaxweynaha federaalka madaxweynaha Puntland ugu horeeyo Saciid Cabdullaahi Deni nabadoonada uqaash odayaasha waxgaradka inta waxaan ogeysiinayaa arinka waxba kama jiraan inuu yahay waxaan oranayaa ha laga fiirsado gacmaynta ku jirta ilmo Cabdulaahi Xaaji Nuur dhaxdooda annaga tolbaanahay waa u simannahay adduunka waa laga tagayaa inama alxayaatu dunya lacibun walahun wazinatun watafaaqur baynakum adduunkan waa ciyaar waa laga tagayaa qofkii qof isgarab saara oo yiraahda kan baa aniga ii roono aan kaxisanayaa ma waxa u taal masiirta iyo isnimanada tolka waxa u taalaa marka u horeey ayaga inay ka soo go'aan yiraahdaan qofkaasna dooran annaga naga yimi oo ordo doorta annagana markaas ka bacdi waxaan leenahay haddii xooleen tahay haddii aragti tahay haddii wax garab tahay intaba marka ma habboona in afduub qabiilo dhan oo beelo magaalada degan oo degan oo asatiisna ah oo beesha reena la yiraahdo in la afduubo ma dhici karto waxa aanu halkan isugu nimi beesha arbeed ama reer naalaye inaanu cadayno mowqifkayaga ku aadan doorashadii xalay la magacaabayay waxa aan la isla ogeynaa meel xun bay ku dameeyaan waxa weeye marka taladaydu tahay in ma garanaysaa wax aan raalli ka ahayn arintaas ilmo Cabdulaahi Xaaji Nuurna ay meesha ku dhan yihiin intii waaweynayd oo dhan marka waxa weeye taladaas waa talo lagu degdegay marka waxaan leenahay arintaas ka noqo Bashiirow meeri gaar ahaan reer naalaye waxaanu cilaaminaynaa wixii xalay dhacay oo macnaha shirkii nimankii xalay shaaciyeen oo ah doorashada ku saabsanaa suldaannimo inaanu ku raacsanayn arintaas waxa iska lahaa ilmo Suldaan Cabdulaahi oo halka fadhiya waxa fadhiya orodka Maxamed Xasan Xuseen iyo Nuur inta ka tirada waa bilweyntii reer naalaye waxaanu halka cadaynaynaa oo ku raacsanahay ragii hore u hadlay inaan arinta ku raacsanayn arintaas arin loo fadhiyay ahayd arin iyaga laga sugayay ahayd macnaha idii la dooranayo arin tolku isku raacsanaa in macnaha iyagu ay cilaamiyaan bay ahayd nin baa xalay ku tagrif hawsha qaatay oo dad gaara la baxay marka waxaanu sheegaynaa waxaan ka cadaynaynaa anagoo beesha ah intii horeysana aan ku raacsanahay arintaas inay tahay wax kama jiraan odagii nin weyn baan ahay nin reer naalaye ka dhashay baan ahay waxa meesha la isugu keenay arinta la isugu yimi niniga weyne ma jiro magaaladan xaadir ku ah arinta meesha la keenay caawa arrin aanu annagu meel ku ogeyn bay ahayd oo raggii lahaa oo boqortooyadeeda lahaa oo baanu ku ogeyn raggii waa laga afduubay baa nala ku yiri waxaan waxba ka ogeyn waxaanu marka meesha u nimi arintaas la
afduubay oo nimankii lahaa afduubka kaga maqan lagaga qaaday ilmo cabdulaahi xaaji nuur ay leeyihiin waanu ka sugaynay oo odayaal u ahayn oo la yidhi waa rag baa u tashaday oo ka qaaday ragga aad u tashaday ragga ay siinayaan waa ina cabdulaahi ninku ma aanu nabcin raggu nooga mid yahay waa ina cabdulaahi xaaji laakiin waxaanu rabnay inuu iyaga ka soo baxo oo iyagu gartaan waxay raalli ka ahayn oo iyagu dooran waa boqortooyo cayaar maaha nimanka la roorayaa haddee wax kale uga jeedaan ma ahaane ma leh hunguri iyo lacag iyo wax kale niman kale waxbay ku ugaarayaan ee rabatin ma aha nimankaas annagana inayna kala dilin maxaa jira waa nagu takrifasheen waxay yidhaahdeen reer naalayaa wada annaga reer naalayaa mana wadno hawshaas nimankii lahaa baanu ku ogeyn oo ka sugayn waxaanu marka rabnaa oo dadka ogeysiinaynaa dowlad iyo shacab iyo isin iyo nabadoon iyo kulli waxaan ogeysiinaynaa arrintaas nimanku ku tallaabsadeen annagoo odayaasheeda iyo meesha iyo budhaheegeedii inaanu waxba ka ogeyn oo kula socon arrintaa in dibna loo ku soo celiyo nimankaasuna ay yihiin waxay ku socdaan baadil arrintiisii marka anigu sidaasaan ahay waxaan ahay reer naaleeyaa reer xaaji samantar cabdi muuse xaaji samantar cali naaleeyaa la yidhaah xeerka soomaalidan ka midna wiilal inta casho la siiyey la yidhi saas yeela no nama qabato meher ma qabato reer naaleeya ma qabato ilmo suldaan ma qabato